أحمد آدن حاشي wuxuu Muqdisho ka yahay qaylo-dhaan lugaynaya waa fariimo wadaha xanuun ku dilaya digniin hore la'aanteed COVID-19 waa isqaame u taagan badbaadada nafta bulshada lugtiisu maalaa bacadka Muqdishada baaxadda weyn hubkiisu waa codbaahiye waxaan u lugay waxa waaye 10 daqiiqo waxa la hadlayo 50 qofood 10 kala 50 saacadii ku dhawaad waxa la sheekaystaa boqolaal qof oo Soomaali ah marka saadaraadii dadku waxay rabaan in la wacyi geliyo wax loo sheego waxyaalaha hadda la raacayo waxa kamid ah in qofka aad kala fogaatiin oo aad faraha la dhaqmo kala fogaansho iyo farxad joogto ah buu ku baaqayaa wuxuu ka digaa halista koronaha kumanaanka dilay isagoo booqanaya rugta barakacayaasha xaafadaha xamar suuqyada iyo goobaha bulshadu isugu timaado oo wali camiran nolosha caadiga ah buu socdaan shaahi waa la wada cabayaa isku imaashii caadiga waa jira salaantii way jirtaa wasaska waa la isla raacayaa meel walba dadkii sida caadiga ah buu socdaa marka ariga maadaama markaad dhageysata adduunyada wax ka socdana oo nin walba uu foojiga yahay aniga dadkeena yihiin dad aan foojignayn marka taas waxay ugu kaliftay anigana microphone-kayga aan dadkayga wacyi geliyo aan wax u sheego kaalinteedii muwaadiniinta Suldaan Maxamuud Deer Axmed ayaa qaba in dadka Soomaaliyeed sahladeen xanuunka coronavirus oo ay iska indhatireen fariimaha caafimaadka Soomaalidu waxay tiraa doon qadar alla barato qoladaada looma dhiibto dadka qaar baa iska dafirsan oo wixii is ilaaliyo markii la yiraahdo is ilaalin war ilaahayna qab awrtaadana jira la yiri hal is ilaaliyo quraanka hal la akhristo bulshada qaarkood wacyigelintu waa gaartay oo kuwa ka feejigan corona una hoggaansamay talooyinka hay'adaha caafimaadka Soomaaliya waxa ku codsanayaa dadka Soomaaliyeed in wacyigelinta wiilkana mal si fiican loo muujiyo wacyigelinta gacmaha la iska dhaqo oo geedka la xirnayo la xirto oo guryaalka oo meelaha oo dadka soo bataan aalatiga ku codsanayo dadweynaha waxa muuqata in dadka qaarkood ay ka gaashaaman yihiin coronavirus oo ay aaminsan yihiin haddana waxa jira dad wali aan u hoggaansamin awaamirta iyo sidoo kale wacyigelinta ay wasaaradda caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimahan faafinayaan kuwaasi oo ganacsanaya isku imanaya salaan sameynaya isku dhawaanaya oo aan tixgelinayn awaamirtii in hoggaansamaan ganacsiga ayaa socda gaadiidka ayaa socda dhammaantood way shaqaynayaan maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka